TV-ga caalamiga ah ee Universal ayaa u kurgalay si uu wax uga ogaado ama uu xog badan uga helo xaaladda nololeed ee shacabweynaha ku nool magaalada Ceelaf Weyn una soo tabiyay cabashada baahiyaha aasaasiga ah ayaa maanta mikrofoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Ceelaf Weyn oo ka cabanaya biyo la'aan aad u daran oo soo wajahday guud ahaanna saameysay magaalada iyo deegaanada xoolo dhaqatada ee hoos yimaada. TV-ga Universal waxaan ugu mahadcelinayaa sida uu u duubo uga shaqeeyo arrimaha bulshada u duubo cabashada bulshada aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa TV-ga Universal ugu horeyntii baahiyaha hadda bulshadu aad ka uga qeyrinayso waxaa ka mid ah biyaha Ceelaf Weyn runtii biyo la'aan baa ka jirta waxaa xukuumadda maanta jirta Ceelaf Weyn waxay uga baahan tahay biyaha dadkii masaakiinta ah waa darxumaysan yihiin وجعلنا الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون إلهي واكي جديد وآية القرآن بيان نولك هو الرئيسان ما شفتو Ceelaf Weyn maanta nolosheeda booyad ka soo dhaamisa meesha la yiraahdo ila 30 kilomitir inoo jirta 25 ku baafoostadii biyo ahayd nagu maraysa qof dan yari ma iibsan karo dan yartii marka waxay ku baaba'day biyo la'aanna nolol ka horeysa ma jirto waxaan leeyahay ceelkii wuu jabay wax ka hadlaya iyo wax u soo socda iyo wax u soo sida midna ma hayno ilaahay baan hoos taaganahay oo baryeena ilaahay baan ka baryeena inuu noo soo dedejiyo mid aanan cidnaba ka baryin waxaan leeyahay madaxweynaha iyo wasiirada iyo hogaamiyayaasha Ceelaf Weyn hoos loo eego biyo ma haysato biyo meelna looga doono biyo la siiyo mas'uul baa idinkaasta magaalada runtii biyo qaraar ma haysato kuwa macaan ma haysato booyada ayaa meela aad iyo aad u fog runtii ka soo dhaamiya wax laakiin yaaniga kaafi maaha marka xukuumadda waxaan leenahay biyihii hore ee magaalada loo soo saaray way dadaashay runtii xukuumaddu biyo bay u doontay magaalada laakiin biyahaas laguma guuleysan oo way maartay sidii la rabay bay noqon waayeen laakiin xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in biyo kale magaalada loo raadiyo si kastaba ha ahaatee biyo la'aanta ayaa ah tii ugu darneed ee saameysay magaalada isla markaana marka ka dambaysa ay sicirka biyuhu kor u sii kacayaan taas oo caqabad weyn ku ah dadka danyarta ee ku nool magaalada Ceelaf Weyn oo aan tahli karin in ay biyaha helaan. Axmed Mursal Askar TV-ga caalamiga Universal Ceelaf Weyn.